عشيريسة إيه محمد وويل كان حالي داود المهيسة وحاهيس إيدادود أو أن جعلها إلا ديه جري سافي دوسن مقع إيقا قلدانين كل يدادك يقانون وأركي دونان وإيديقيسان دونان ها سافي إلا ديه جري أن جعلها إيداد المهاس هيسي مركي لانك اللو حرينا مركي دنبان ويكاتكتبو anyway marka gurigeyga aniga qayb kamida ayay waxay ka deganayeen qol service oo weyn qol weyn oo service ka deganayeen musqush weyn la share gareey jireen jikada waan wada share gareey jirnay musqushna waan share gareey jirnay laakiin manoolo been weeyaan manoolo kulay saa maqla aniga hadda manoolo gabadha inay noolaato laakiin waa jeclaan lahaa ee been noqoto dhimashadaas aad u jeclaan lahaa marka qol ay deganayeen qol markay iga deganayeen waxa dhacday daahaysi oo asaga la dhalatay eedo oo xun dhowr mar inaan iga sheekay amaleena dadkii daawada hadda had koor anoo eedo ilmaheysay oo cunug dishay garaacday iga sheekayna qofkii xasuusto hadda farta soo taag hadda dadkiina idu kamid yahay dadkii daawaday anoo dhowr mar aan ka sheekay arintaas oo ku keenay ilmahaaga dad ha uga tagin ma aqaan dadkiina kale dadka hadaysan dhimanin ama aysan hadda maqneen dad badan oo daawaday aan igu jiro anoo ka sheekaynay ilma eedood aabood la dhalatay haysay oo dudubla waliba qabiilka xataa waan ii sheegay maalintaas ee maalmahaas qofka xasuusto qabiilka xataa waan ii sheegay duduble ahaayeen aan iigu dhahay arintii ilaa waan wiilkan ilmihiisa waxa hadda meesha ka socdo ani ma ogi gabadhi marka qola iga deganaayeen waxay aheeday eedadaas haday nooshahay haday dhimatay qofka dunida qofka ugu xun oo bini aadan oo inta aan soo arka dunida ugu xun eeday waxay aheeday eeda aad u xun waxay aheeday eeda xaasidada waxay aheeday eeda naxariis la'aana waxay aheeday eeda bilaa damiira waxay aheeday eeda aan waxaan ku tilmaamay aan aqoonin ilmaha waxay u dhaqmi jirtay si oo xad dhaaf oo bini aadan ka baxsan waliba markaas aniga waxa ogaa ilmaha hooyada Sweden ay joogta lama hadal sii jirin Sweden gabadha hadda joogta la sheegayo ilmaha dhashay aniga markaas ay la degeen hooyada xilligaas Sweden ay joogtay odagana Mareykan oo jiray ilmaha hooyadooda lama hadal sii jirin aabahooda soo hadli jiray aabahoodna iyaga kama warqabina walaashooda la hadli jiray walaashiisu la hadli jiray aabahood inta badan ayaga lama hadli jirin marka waxa dhacday gabadhan lama hadal sii jirin ilmaha laba cunugo markaas adiga 10 ilmaha dhaaf wax saasana way ahayn meelahaas adigu ilmaha hadda ma taqaana oo 11 miya 10 miya ma oga adu ilmo yar ahaayeen aad u yar ahaayeen bas gabadhi wiilna way ahayn waliba wiilka weynaysan jecelhaya still si fiican ma xasuusto laakiin I think inuu wiilka weynay saasi ila tahay haday gabadha weynayd ma og laakiin qalbigeygu wuxuu leeyahay wiilka inuu weynaa laakiin ma xasuusto marka waxa dhacday eedadii ilmaha way cadaabi jirtay ilmaha markay cadaabto inta aniga guriga aan joogno aniga aad iiga baqi jirtay aniga markaan joogo ilmaha markay wax dhahda xataa ilmaha daasaas ma dhigi karto barran aan dhigi jiray marka maqanahana way cadaabi jirtay maalmaha kamida dukaan aniga aan leeyahay oo boolay makaahil ku yaalo oo xaafad jiir mareexaal oo xilligaas xaniyo warsan gal dhigi jiray dukaan aan ku leeyahay waa weena ku soo jeedo gurigeyga barxadna dhaxdan meel waa wixii Itoobiya deganay qanfilooyinka aan oo dhaxayso gabdhahan inta ku weynaa fogfoginayaan dhahayaan waa imaaday marka imaaday waxaan dhahay guriga ku jira qolkee ku dhax gashatay inay cuntaa ka baqeena naagtaan dadkay cuntaa cunuga ama jartaa midi ay wadataa bas ana marka waxa sameeyay ganjeel gurigaaga garaac ganjeel biro lahaa waxa xasuusta gurigaas ee tiiriska gurigaaga garaac qolka gab ah ugu siino yaa waaye ee tireedadii markaas aan ku dhahnaa fur aan ku dhahayno abay xataa ma dheen because aniga xataa dukaankayga furnaag soo tagay waa shoqsanay gabaran gadaalka waxaan ku iri dukaankayga xir tag dukaankii waa shoqsanay aniga markay aragtay in aniga ahay aniga way iga baqaysay laakiin gabdhahan way harowsanaysay aniga markay aragtay in ahay cunugi buste intay joodar dhulka yaal ku tuurto oo jiiftay ee buste ku kor qarisay macal madaxa buste ka saartay macal madaxa qof hadda oo xataa caadi macal madaxa buste dii laga saaro ma neefsan kari xataa moogdo qada hadda adu caadi qof dadka qaar xamili karaan buste madaxa ka saartay saan u arkin aniga wiilkii waxa dhacda marka waa gal qolki cunugi malahan waa arkay inta qof jiifa buste lagu daboolay bustiya saas u qaaday waa fiiday santa u galay bustiya saas u fiidino waa fiiday bustiya hada fiiday cunu korkiisa dhiiga ka socdo gogo'an yahay dubka kacay hoogay ba'ay nafta ku jirto aab ku jiro oo hadana jareenay waa taqaan qofka markuu xanuun ka bato uu gariira korka markina kale qofka arka dadka uu jareena uleeyahay cunugi واجرينا طب كيسنا إلهي محمد سميان كل عرتي وحي كنتم تعلو قص دب كيس قاعدة
wixii ay ku tunta gabadhaas eedada ah naarta Allah ku fogay hadaan noo shahay mar dhowr mar aniga niga hadla arintaas ay taani sheegay naarta Allah ku fogay naagta hadaan noo shahay masiiban Allah ku rido haday dhimatana jahannamo Allah ku rido cunugi waa fiiriyo korkiisa dhan ulahiya waxa qaada wixii ay ku tunta suun inuu ahaan jecel wali fiilo feera aan jecel suun caadi meehen fiilo feero waxa wax oo markii lagu dhufto ma taqaana qaada bararina jirka guduud dhiigka keena balaaka keena وانا حعنوق مركا عنوق يقريرايو dhahay وانا حوافيرين واي الله بارك الله كوغو يانكو إري الله بارك كذا بارك الله كو جرب بارك كذا هانكو إري سان محا اوغو قشي سان محا اوغو دي شي سان محا اويا شي انك بيحين واي gabar marka qolka kale waxa iga degan sacada inay nooshay in kala ma qaan laga yaabo haday nooshay kulay adduun hormaran joognaa dadka waa la is wada daawanayo inay gabadha sacadka ay daawato aan jecelahay haday xasuusato gabar sacada qol iga degan gabadhi sacadka way soo carartay iyada marka horna may joogin waxaan dhacay markaas ay imaaday ani iyadu marka ana ka hor arkay waa naxay waa qeyliye ayadii waa arta beerka ay tir gabadhina waa wada naxnay markaan aniga waxaan go'aansaday inaan boolis waco runta fiican waqti Soomaaliya masuuliyadda la wareegtay ama maqla oo shamsa diiri looga tagay muddo kadib ilmihi fiisiga heleen Mareykanka fiisiga markay heleen ilmihi way bixeen markay bixeen waa maqlay sanada kadib aan waxa arkaa 5 sano ma ka soo wareegtay ma aqaani adi wax saasa ma ka soo wareegay 5 sano 6 sano 4 sano I don't know adi 4 sano ilaa 5 sano ilaa 6 sano ka soo wareegtay amaleena waxa maqlayaa milyuunay wiilkii labadii cunug saas loo gali jiray wiilkii aabihiis soo xiray wiilkii aabihiis xiray maqle yaa aan ku dhahay wiilkii ma aabihiis xiraha hadawsan qalin nasiib uu leeyahay ku iri wiilkii aabihi ma xiraha aabihi cunug ma xirin cuquba xirtay wallahi saasa ku dhaban ii sheegay baan nafteedina kama sheegay adinkana ma sheegay waxaan ku iri cunug ma xirin cuquba xirtay tan kale haduu biraynin nasiib uu leeyahay ku dhahay sababtoo ah cunuga si xun loo dhaqmi jiro oo macnaha uu qofka fiiri waaniga dhaxgala macalin dugsi aniga oo ma jeertaan waxaan daawaday oo nin weyn oo kontinjirneero anoo joogo xamra la keenay macalin dugsi oo ku dhufta darteedo gaal u noqdo kristaan u noqdo marka waxaan ku iri cunugaas haduu lacal waxaas noqdane waxaan dhahay asaa u sabab ah hadii kale tane waxaan dhahay nasiib oo leexiro oo ugu simay هي هحيرو ساسا يروليبو هحيران كو إيرح عقوبة حرتي بلايد حاستني ماذا بدن هحيرو because waxa iga sii hor muuqda aan wiilka ma aqoonin ilmiis wuxuu ku sameeyay ma ogi dhibaato markaas kulay lama joogo laakiin xaasidnimo u qaad aniga naftirkeyga odaygu ilmaha dhal waxa ugu qaaday ilmiisa kama warqabin eedadan si ilmaha si u dilayso haduu ka warqabin lahay biilkaas soo dira haduu ka warqabin lahay ilmiis wuu ogaan lahaa waxa lagu sameeyo ilmiis la hadli lahaa eedadu la hadli jira umalayna biilko soo dira eedadu soo la hadli jira ilmaha marka haduu aabaha la hadlo jaa waxay u sheegayaan haday kalsooni ka haystaan aabo eeduuna garaacday aabo saanay ugu dhufatay aabo fiila maanta liigu tumay aabo way la shar gareyn lahayn oo mugdo laakiin waxaan dareemay in calaaqaad ilmaha ay aabood ka dhaxeenin hooyadoodna kama dhaxeeyo hooyadu waa loo diiday familiga u diiday eedada iyo aabaha ima ogoleen in hooyada Sweden joogtaan ay ilaa hadda ma qani laakiin looma ogoleen ilmaha inay hooyada la soo hadasho never waa weydii jiray ilmaha wala sheekaysan jiraan dadka ilmaha la sheekaysto ilmaha u naxariisto ilmaha caawiya aan iska hawligii marka waxay dhan hooyadeena ma la ogol inaan la hadalno ma la ogolo iyadana ma la soo hadli kartaa anagana ma hadli karno okay waxa dhacda markii liigu dhahay waa la xiray baan mani sheegay maalintaas waa ku farxay baan ma fiican waqti Soomaaliya baan ma fiicno waxa ugu farxay cunugii iyo ilmihi ay hor muuqday dibka iyo dhaawac loo geysay jiray iyo dismoraalka iyo xanuunka aniga weyn maanta daa ugu sameysay fiiri ana soddon ya baf jiro aniga sabir waa Soomaaliya umul inta ugu dhibaataysan oo qalitaan ugu dhibaataysan cuqdadni qaaday qaarkiina waxaan jecelahay jahannaba adduunyo aakhira inaa gashin macaadala cunug yariis ah oo saqiir ah oo 10 jir oo hooyadiis loo diiday in la hadalsiyo oo aabiis u naxariisanaynin la hadleenin oo eedo gumaysanayso oo saaka la dilay oo galabta la dilay oo duhurka la dilay oo hal marna sakrin oo asiga dhanba cunugi kudla ku jiro oo naxtin ku jiro maanta naxtin la ku jiro muxuu xeerin karaa cunugaas waxba intuu aruuri uu markuu wanaag soo siina adduunka laga yaabaa inuu ilmahan uu noqdo qofka dunida ugu xun 100 qof inuu dilo xataa laga thank you wali waqti salaam معنا ستهاي في الحمد لله حال أرنتان في أنا هرتو ورقبتي لكن أنا حالي برنامج كله مسعونين لكن أرنتان بالله وجيد أفريقيا صاحبه وحكوا جاي صح
laakiin wixii hadda mataqaan weliba marka asaga la xiro xataa waa la socday laakiin wixii ka dambeeyna lama soconin haddana uma malaynaynin arrintan socoto waa arkay social mediaha xataa maruu leeyahay hal caawi magaciiga ku jiro waa arkay maalin dhexdaas isagoo mar ilmihii habaarayaan comment xun u qoray oo aan leeyahay qof xun hadaadan ahayn maad habaartay way ka muuqataa shakhsi xun inaad tahay waxa saas asiga qoray muu malaynaynin laakiin inay arrin aniga dhowr mar aan ka hadla xataa dhowr mar aan live-kayga uga hadla oo dadka aan ka wacyi gelinaayay inay walaalkood la dhashtay ama walaashood la dhalatay ilmahooda aysan ku aaminin oo ay ka warqabaan xataa hadday u dhiibtaan ma fahantay ilmahooda ay ka warqabaan صح hadda dee maanta waxaa ogaaday gabadha horta waa dhimata liigu dhaha waa kan xabikoos cunugta iyadoo yar ee aniga gurigayga qayb kamid a dhinac ka deganaayeen aada ugu naxariisan jira ma fahantay way yaraada ayada wiilka eedda xun oo eeyad oo bini aadamka dunida ugu xun ahaysay oo dili jirtay marka dhimashadeeda xataa gabadha way saamaysay sida qof hadda mataqaanaa aan mar dhow inta arkay ama maxaa la mar dhow isku dambaysa oo dhinta camal مليون سوق وين ما تعرفين روني بناس ديناc socda ma fahamto dadka haye adin xaq u taabo wax buu sheegay ana hore uma aqoon kan horena uma arkin ilaa usbuucii hore igu horeysay isagan maqalkiisa iyo hadaleyntiisa markii taa laga soo gudbo ninkan xabsigu ka soo baxay 7 sano soo xirnaa soo sheegay aan loo yaabin hadduu hadal qaldan iyo si kala hadalay qaab nervous u hadlo waxa laga yaabaa inuu maskaxiin uu wali u fadhiyo inuu noloshii uu la qabsan homeless oo noqday guri ma haysto waxyaalo badan aska jira anyway taa ku fogaameen su'aasha taagana gabadha ma dhibato mismo noosha isla daba wado waa dadku qaar been sheegayaan wax qof aadan cadeynay dhimashadiisa u tacsiin ama taasan ku leeyahay ama waan ogahay anu waxbaan ogahay arkay laakiin hatta maxaa filaada gabadh inay noosha boowe way joogtaa gabadha Sweden ay kula joogtaa way noosha adreeska boowe xaqiijisay aad iyo 100% ha ka walwal okay maxaa loo leeyahay marka way dhimato loogu gelinaa dunida waa laga qarinayaa asaga laga qarinayaa kan waa toos loo walaay ninkaan ma aqaan cadow meeshu ka sameystay iyo qisada ka dambeysay in la xiriir waxaas ma sii galgalin kuma sii fogaan laakiin gabadhiisu way nooshahay dad kale ku dheeleelayo dhibaya oo ka baqaaya inuu ku soo kaco oo dacwo ayaga ka gudbiyo mar kale hada sharcigiisu waa beerta hawadu gala soo sheegay lawyer waxa ka hadlay laakiin gabadhu ma nooshahay mise ma noola gabadhu way nooshahay Sweden ay joogtaa waa garta alla inay nooshaan jeclaan lahaa aniga just am happy caashiris hadda nooshahay way nooshahay hada ma fahantay social Sweden meel ku inta ma jirtaa baa noosha gabadhaas inay nooshaa waa jeclaan marka dadka laakiin been iyo runaysta wada aan qaar waxba ogeyn qaar iska digaya xog ogaal oo hadana hana laakiin maxay u tirweedi matay marka hana saaki maxay u tirweedi ma ka jawaabi karaan ma garanayo taa moogi baliyune gabar oo qurbaas joogta oo ilmo yar adigu hada qalbigaaga ma gelinay waa may waa isdawaa gelinaa baa markii ilmaha la wareeriyo depression lagu rido cunuga seekolo ku dhaco waa isdilaa xabiibti hadii nafta loo keeno oo maskaxda okay waa isdilaa hal yirbe waa isdilaa ninkan adiga weyn sheema hadii walwalkii baa qurbaha waa naqaana qurbaha milyan qurbaha waa naqaana qofka markii wax oo ilmaha markuu dilo ka tal xiro wax yaraa wax raahaya ilmaha waa laga qaadaa sax ama sabab la xiro ilmaha laga qaadanaa